السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي محمد دمانتي وهذه سلام يا ميلة joogtaanba waa uma khaali oo saaka baraf ku dhex jirta alxamdulillaah ilaahay baa naga wanaagsan adinkana sidaa ay si lamida baan ilaahay idinkaga baryahayaa ilaahay idinkiis biidmillaah sidaa ay si kasii fiican baan alla idinkaga baryayaa Soomaali weynay meelaad joogtaanba ilaahay idinku nabad yeelo waldunya wal aakhira insha Allah meelan joogna ba Allah ina ku nabad yeelo dhamaanteen waaridkeeni dhintayna Allah u naxariisto intii noolna Allah caafimaad Allah siiyo biidmillaah dhamaanteen ilaahay noo dambi dhaafo adduunkan wuxuu yahaaba iska yar Allah inoo dambi dhaafo dhamaanteen kulligeen meelan joognaba Soomaali weynay aniga waa uma Khaalid weeye oo Turkiga wali joogta Turkiga meel xoogaa Turkiga u dhaxaysa iyo meesha la yiraahdo Ruushka baan joogaa oo kaba sii talaji badan meeshii Turkiga kaliya ahayd kaba sii talaji badan baan joogaa alxamdulillaah ilaahay nagu nabad yeelo meel walba aan joogno meel kasta aan joogno Allah inagu nabad yeelo ilaahay idankiisa meel kasta aan joogno Allah inagu nabad yeelo dhamaantiin Soomaali weynay saaka maanta mawduucaygan ka hadlayaa wuxuu yahay Soomaali waxa weeye waxaan uga hadlayaa anigu mar walbana Soomaali baan ka hadlaa Soomaali maanta aan ka hadlayaa waxa weeye waa Kenya iyo Soomaaliya Kenya waxa istirmeeshan cidna ma leh dadna ma leh dalna ma ahan waa meel adigu ka talisid haba gobol uga tali dadkeeni Soomaaliyeed oo madaxdayno aha ama raggeeni Soomaaliyeed 10 qaybood iyo 10 iyo 20 qaybood bay noqdeen mid walba dantiisuuna ka talinaya ma ahan dan Soomaaliyeed inta ka talinaysa waa mid dhifo ilaahay u naxariistay weey inta kale waxay ka talinayaan seebaad adigu wax ku heshaa seebaad adigu yeeshaa see adigu ku noolaataa waraawa mas'uuliyadda ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku saaray ilaa waxa weey kulli waaxid waa mas'uule aawa mas'uuliyaddii dadkaan idinka dhex muxuu hayto idinkaga haboonayd oo aad qabsan lahaydeen daawo dadkiinaan mas'uulkaad ka ahaydeen aawa dhulkiinaan mas'uulkaad ka ahaydeen ilaahay biriso idin weydiin maayo Soomaali weynay Allah idin weydiinaya ragga Soomaaliyeed oo Allah idin weydiinaya dhulkaana dayacaysaan dadkaana dayacaysaan adinka ilmihii dayacay adinka gabdhihii dayacay adinka caruurtii dayacay markaas aad waxaad leedihiin gabdhihii baa xumaaday wiilashii baa halaabay kana keer noqday Soomaaliyay maantay waxa weeye waad u jeedaan waxa dib dhacaysa waxa weeye ragga Soomaaliyeed baa mas'uulka ah ragga Soomaaliyeed oo is haysta oo meel walba isku haysta oo gobol walba isku haysta oo meel walba is xaqxaganaya ayaa mas'uulka ah ilaahayna wax ka weydiinaya ilaahay idankiisa bari laakiin waad dhihi doontaan bari waxaad dhihi doontaan haddaan sidaas samayn lahaa waa dadka dhintay oo la yiri alla yaana celiyaan soo cibaadaysanayay sanad ku dhicin markii Soomaaliya dib kale oo ayna ka rogi karin ay ku dhacdo god ayna ka soo saari karin markay ku dhacdo hadhiinina bari Soomaaliya ilaahay haydin garansiyo xaqa haydin garansiyo nimanka Kenya dabada ka wada nimanka Itoobiya dabada ka wada nimanka Carabaha dabada ka wada ilaahay subxaanahu wa ta'aala xaqa haydin fahamsiyo Soomaaliya maanta haday god ku dhacdo adinka ku riday dadkaas haday halaabaan adinka haleeyay caruurtaas hadii la qaato adinka u kasayn la qaato Soomaaliya mas'uuliyadiina ragga Soomaaliyeed oo mas'uuliyadiina hadaad ka seexataan ilaahay subxaanahu wa ta'aala biri weydin weydiinaya qof walba raaciyadu raaciga u ahaa waa la weydiinaya mas'uulka wuxuu ka ahaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala xaqa haydin fahamsiyo Soomaali weynay xaqa Allah haydin fahamsiyo hooyooyinku waa inay qaybtooda qaataan aabayaashu waa inay doorkooda qaataan Soomaali maanta waa inay ka taxadartaa dhibtiina shalay 30 sano aynu soo dhaafnay inayna wali ku sii jirinin oo ayna wali dhex fadhiin sidii arig lo'du waxa la dhibto ma karto haday inaga siiyo dameeradu wallahi dameerada maanta aan dhib ogolayn baan ku yiri saa uga gilgilanaysa inaguna dhibtii baynu wali faraqa sii suran oo sii haysanaa marka Soomaaliya ilaahay xaqa haydin fahamsiyo ilaahay idankiisa xaqa Allah idin fahamsiyo aabayaasha xaqa Allah fahamsiyo hooyooyinka xaqa Allah fahamsiyo
ilmahaynu dembiga saarnaa ilmahaanaa saa yeelay gabadhaanaa carartay wiilkaanaa yeelay may dembiga waaridkaa iskale dembiga waaridkaa iskale sababtay tahay waaridku waxaa weeye haddaysan sahankoodu xumayn ilmahooda ma xumaadeen sahankeennay baa xumaa markaynu ilmaheenni meelaha ula soo cararnay sahankeennii baa xumaa dembigiina qaata oo doorkiina qaata soomaaliyey waxaa weeye maanta nin walba waddankiisaa waddan u ah ilaahay xaqahayna fahamsiiye waana idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu